wafdi ballaaran oo hogaaminaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed ahna musharax u taagan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay deegaano tiro badan oo ka tirsan gobolka Soon waxaana musharaxa galbilayay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani iyo saraakiil sare oo ka tirsan xisbiga wadani ugu horreyntii waxaa wafdiga lagu soo dhaweeyay deegaanka Dar es Salaam Guumeys iyagoona ayna isugu soo baxeen dadweyne aad u tiro badan oo ka qayb qaadanaya soo dhaweynta wafdiga gudoomiyaha xisbiga iyo saraakiisha xisbiga oo dhan oo gudoomiyaha ku-xigeenkii koowaad iyo gudoomiyayaashii oo dhan soo dhawaada ku soo dhawaada gobolkii Sool halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa dhammaan gudoomiyaha xisbiga wadani oo hogaaminayo wafdiga ballaaran uu ka mid yahay Cabdirasaaq marka waxaan leenahay halkan waa Guumeys ku soo dhawaada nin weyni wuxuu ku hadlaa waa dardaaran wuxuu cunaana waa kow maanta halkan waxaynu ku soo dhaweynaynaa xisbiga wadani ee madaxdii hogaaminaysa waxaan dadka kula talinayaa dadweynaha waxayna bartay xisbi aynu la shaqayno iyo madaxaynu la shaqayno oo markayna la shaqayno isna ka tagto maanta waxaa muuqata guul waxaana soo dhaweynta uga mahadceliyay musharax Cabdirasaaq Khaliif Axmed iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga culeysku Cabdirasaaq gobolka ku leeyahay ayuu culeyskan xisbiga ku keenay annagu halkan waxaan keenay wax kala maaha qiimaha uu leeyahay Cabdirasaaq iyo siduu yahay iyo gobolka siduu u haysto iyo sida u ballan qaadeen ayaanu ogaanay mar haddaan ogaano madaxnimadii ku soo baxayo annaga laftayada ka sii xeer samaysanayna dhammaan shacabkana soo dhaweeyay aad baa u mahadsantihiin aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa soo dhaweynta diiran sharaftiya karaamada nagu soo dhaweyseen madaxda xisbiga oo idiin socota weeye aad baan idinka mahadnaqayaa soo dhaweynta aad halkan nagu soo dhaweyseen aniga iyo madaxdii guud ee xisbiga oo wada jirna aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin socodka iyagu wuxuu ahaa maanta weli kaambayn ma bilaabin sida aynu horeyba isaga warqabnay muddo 5 sannadood ah waad ogeydeen oo ballan baynu lahayn ballankaasoo ahaa inaan u tartamo xilka gudoomiyaha baarlamaanka oo gobolka kan laga soo dooran doono nin u jeeda ma ahayn tala maanta inagu dhalatay ama tala cid kale inagu soo dirqiday ma ahayn talo aynu bislaynay oo muddo soo wadnay bay ahayd hadalku uu iska dhan yahay intii la yidhi buu ku dhan yahay safarka iyagani wuxuu daaran yahay inaanu soo galbinno maanta waxaanu galbinaynay hore waxaa ogaan jirteen gudoomiyaha baarlamaankan ahaan jiray waxoogaa kursi baan ahaa oo nin reer Soomaaliya la sugayo hadda baasha fadhiya baasha ninkii bedeli lahaa ayaanu idiin wadnaaday Cabdirasaaq oo kale waxaa wafdiga si heer sare loogu soo dhaweeyay degmada Yagoori halkaas oo isugu soo baxeen dadweyne aad u tiro badan waxaana halkaa ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan wafdiga maanta waxaynu bilaabanayaan doorashadii golaha baarlamaanka iyo deegaamada waxaan shaki ku jirin inaynu aragnay raggii hore waxqabadkooda meesha ayna dhigeen waynu aragnay uma baahanin inaynu soo celino ragga 12 sano ee hor fadhiyo ee siyaasadda noocay doontaba ha ahaatee inoogu jiray waxaynu wadnaa rag cusub waxaynu wadnaa xisbigeennii wadani soo dhaweynta iyo taageerada ballaaran aad muujiseen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin deegaanada Tuulo-Sabakaab Aracdeeyo Cajiid ayaa si isku mid ah loogu soo dhaweeyay wafdiga waxaana soo dhaweeyay dadweyne ruuxaya caneemo qoyan naqaya dhammaan shacbiga reer Sabakaab odayaasha iyo dhalinyarada iyo culimadaba iyo haweenka waan idinka mahadnaqaynaa soo dhaweynta diiran
وفدي الله رحمتهم وقرده ودي وضع قدوميها عصم قلها وكيلة الجمهورية الصومالية laba qaybood ma kala leh kulmiyay raaceen labadii qaybood way midaysan yihiin maanta way la tageen وعلي كتكا مقنين halkan waa degmada Adha Cadeeye wafdida ayaa markay u soo gudbeen duleedka magaalada Laascaanood waxaa jawigu isku bedelay sidan waxaana ugu horeyntii halkaa ka hadlay odayaasha waxgaradka bulshada qaybaheeda kala duwan madaxda xisbiga ee gobolka waftiga qiimaha iyo sharafta leh gudoomiyaha xisbiga wadada Cabdiraxmaan Ciro iyo gudoomiyaha ku-xigeenka Cabdirasaaq dhammaan wufuudii loo timid waxaan ku soo dhawaynaynaa salaanta islaamka sida meesha isugu timi madaxda gudoomiyaha xisbiga wadani gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Sool ku soo dhawaada assalaamu calaykum gabagabadii waxaa hadalkaas soo afmeeray musharaxa golaha wakiilada Soomaaliland ahna gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee xisbiga wadani iyo gudoomiyaha xisbiga wadani دكتور عبد الرحمن عرو العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد دمانتين وايديك ما دعينا سو دوينت aad ba u mahadsantihiin بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد dadweynaha sharafta leh ee reer Laascaanood odayaasha guurtida hablaha dhalinyarada aqoon-yahanka dhammaan dadkina sharafta leh ee halkan nagu soo dhaweeyay waa idin mahadnaqaya marka ugu horeysa aad iyo aad waa idin salaamaya sida ay sheegeen odayaasha xisbigu waxaan maanta u soconay inaanu gobolka iyo deegaankana soo aragno talo horena aynu isula ogeyn oo aan maanta igu dhalan aanna la igu dhalinin oo muddo 5 sano ka hora guurtida cuqaasha odayaasha iyo madaxda reerka aan hore u soo gaarsiiyay waan jecelahay ka mahadnaqo soo dhaweyntii aan kala go'an lahayn guumaysiga Laascaanood waxaana tusteen dareenkiina waxaana tusteen halka uu ka taagan yahay Cabdirasaaq Khaliif waxaana tusteen taageerada u haysan xisbiga wadani waanu idinka mahadnaqaynaa intaba gobolka Sool guud ahaan waxaan uga mahadnaqaynaa waliba anigu uga mahadnaqayaa taageeradii xilligii madaxweynimada ururiyay siiyeen aad iyo aad u wanaagsan khadar tarabi wararka badda 24 TV Laascaanood